Assalaamu calaykum daawadayaal kusoo dhawaada Sombadar. Haddaba video waxaan ku baran doonaa sida loo jebiyo Samsung Galaxy A15 Binary 2. Shameyru 2 lagu diiday maxaa yeelay weli laguma soo darin Binary 2 iyo wixii ka koreeyo. Haddaba su-aashiina waxay tahay sidee loo jebiyaa. Haddaan ku fiirino test bounty weli laguma soo darin sidoo kale. Haddaba video waxaan ku baran doonaa sida loo jebiyo taleefanada limidka ah A15 Binary 2 iyo binary-da kale ka koreeyo. Dhowr siyaabood ayaa loo jebiyaa, waxaana ka mid ah in lagu jebiyo si remotely ahaan. Waxaadna u baahan tahay laptop. Waxaa jiro qaab kale oo aadan laptop u baahnayn, waxaa loo yaqaanaa IMEI. IMEI kaliya waxaad u baahan tahay taleefanka la jebinayo inaad soo dirto serial numberka ama IMEI-ga. sidee lagu ogaadaa marka IMEI-ga ku jiro taleefanka? waxaa leedahay xidig 4 gees eber 6 4 gees, kadibna wuxuu aadi doonaa qaybta IMEI-ga ama serial numberka. waxaa jiro qaab kale oo lagu jebiyo A15, waxaana ka mid ah UFI box. qaabkan aad iyo aad ayuu u dhib badan yahay maxaa yeelay motherboard ayaa laga shaqeynayaa si uu u jabo taleefankaasi. Marka waxaan kugula talinayaa inaad labadaas nooc aad ku jabsato, IMEI ama remotely. Haddaba Sombadar waxay diyaar kugu tahay inay ku jebiso taleefanada Samsung-ka nooc waliba ay yihiin. Haddii aad u baahan tahay faahfaahin dheeraad ah, waxaad kala soo xiriirtaa WhatsApp numberka ku xusan qaybta hoose ee description-ka. aad iyo aad ayaad u mahadsantahay.